السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك. وصور دواد يوتيوب channel كيني قصولك. هذا هران نقول صابرين إمك سبسكرايب سار شير لايك يا حلبة. ما تمحان يدين هيا طبعا. فيديو قاعد يدين هيا ما أنت كوسور دواد. سنة كواشم بقولي شيء لا تنكي ميلادية. واحد شيء ما أنت نلو يقعني. عنتر ابن شداد القراد العبسي. هو يدي واحد أورنجري سبيبة واحد هيد أدون حبشية ومدو. أبيه بانه واحد نينكا عنتر لونجيو نينكا قبا كلايو أورارا أو سفر كي حلقي هوري السعودي يصادح مري كنشتي وجهنا حبشة أيو كدح قبصدي halkaas oo dagaal baan ku dhex maray dadkii safarka waday balse ugu dambeyn ay qabsadeen yadii oo isagu adoon ka dhigtay wuxuu ahaa yaraantiisii mid ariga u raacay aabihii oo adoon u ahaa maadaama ay u dhashay gabadh adoona xilliga carabtana ay saadaysan jiray markii uu weynaaday wuxuu noqday geesi aan la loodin karin laakiin se midabkiisa lagu cusreeyo maadaama uu yahay gabadh adoon dhashay aanu ahayn qof guur ku dhashay caadiya sidaa darteed wuxuu ahaa geesi la aamusan oo arigiisa iyo alaabaha loo diro iyo waajibaadka laga rabo sideeda uga soo baxa laakiin se wuxuu ahaa gabya xikmadaysta aqli ku duuhan yahay dhalinyarada ka dhex muuqda ilaa uu ka weynaaday wuxuu jeclaaday in adeertii oo loo yaqaano Abla bintu Malik al-Qurad al-Absi oo walaalo rum ay kala dhaleen laakiin se maadaama uu isagu midabkiisu madow yahay oo adoon dhashay inta laga faquuqay oo adeerkeed ku diiday subax hore aroora waxa lagu soo kalahay oo la dagaalamay qabiilka Bani Cabs iyadoo lagu soo duulay laakiin se sharad wuxuu kula galay aabihii ninkii la oran jiray Cantar oo dagaalyahana hadii uu maanta ay guuleystaan oo ay dagaal galaan oo dagaalka si wacan u guuleystaan inuu xoreyn doono way ku guuleysteen waanu xoroobay maanta laga bilaabo wuxuu noqday Faris ama dagaalyahan reerka ah laakiin se aan adoon ahayn oo ka madax banaan in adeertii uu jeclaa Abla la oran jiray ayuu xidhiidh hoose la sameeyay ilaa markii dambe ay guur isku afaqeen laakiin se waxa ka diiday aabihii ama xalay aabaheed oo ahaa isaga adeerka ruma kuna faquuqay midabkiisa inuu ahaa adoon dhashay isaguna adoon ahaan jiray dabatana wuxuu shardi uga dhigay inuu kun geela oo boqor la oran jiray Ibn Nu'man oo awood weynaa uu leeyahay geeliisa kamida hadii uu keeno inuu gabadha mehersan doono oo saa ku siin doono isagoo iskaga jeedinaya isla ma soo qaadi karo laakiin se wuxuu dagaal tagay dhac iyo boob badan ka bacdi wuxuu soo helay kunkii geel oo dadkii aqligadooda gali weyday maadaama carabtu geela jeclaayeen bariga dabatana ugu dambeyn geeli markii la siiyay adeegii la siiyay uu diido marata kale uu sameystay iyo xujooyin kale balse isagu kama yeelin intuu arinku sidaa ahaa ayuu odaygii adeerka u ahaa dhalinyaradii magaalada xoogga ahayd ayuu u yeedhay wuxuuna ku yiri qofkii madaxiisa ay keena meherka inanteeda ayaa madaxiisa noqonaya oo saasuu ku guursanaya balse isaga looma babacdii karin dhowr qof oo isku dayay inay la dagaalamaanna iyaga naftooda ku khasaaray ugu dambeyn uu geeriyooday isagoon calfan gabadhiisii Abla laakiin taariikh badan oo lagu galay ku dhintay dagaal dhexdiisa isagoo waran isha kaga dhacay waxa lagu xasuustaa in sabcal mucallaqaat inuu ku jiro gabayada maansooyinka todobada ee xaramka lagu xardhay oo biyo dahab lagu sameeyay inuu kamid ahaa isagu Cantar waxa jirta heesaha Soomaalida hees kamida oo ay Seenabciga qaado ay ku jiraan Antay Abla halka gabayada carabtana aanay kaba dhamaan gabayadiisina haddaan ismaqshiyo caadiga carabta waxa kamid ahaa kan هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي وحشيتي سرج على عبل الشوى